waxaan ku arkay YouTube-ka video badan oo ay soo duubeen dad Soomaaliyeed oo ay uga hadlayaan qaabka loo dhimo culayska qaasatan caloosha sida la aligeed ayaa waxaan isiri amaad adiguna ka hadashaa sababtoo ah waa arin anigu aan sameeyay oo aan laftarkaygu rabay inaan waxaan u baahday inaan culayskayga dhimo sida la aligeed baaritaan badan ayaan ku sameeyay waana ku guuleystay laakiin waxyaalaha aan ku arkay YouTube-ka run ahaantii waxay noqdeen waxaan aad u la yaabo dadka qaar waxay leeyihiin haddaad liin dhanaan cabto calooshu way baaba'aysaa kuwa waxay leeyihiin bac isku xirxir oo ma garanaysaa kadib calooshaadii way baaba'aysaa hadda videogan oo kale gabadhaani waxay wadataa bacda markii alaabta fridgeerka la gashanayo lagu duubo oo waxay leedahay haddaad intaa cream calooshaada marisid aad bacda ku xirtid waa calooshu waa ka baaba'aysaa gabar kale oo sida tan hadda videogan halkaan aad ku arkaysaan ayaduna waxay leedahay laba bari haddaad cabtid cabitaankan calooshu way ka baaba'aysaa videogan kale oo halkaan kaga muuqda wuxuu leeyahay yarkaan haddaad biyo cabto calooshu way ka baaba'aysaa marka waxaas oo dhan wax ka jira ma jira horta kow inaan isla ogaano waaye calooshu inay weynaato maxaa keena calooshu inay weynaato waxa keena inaad cunto waxa ma garanaysaa jirkaagu u baahan yahay wax ka badan inaad cunto ayaa keenta inay calooshu weynaato sida la aligeed ma ahan wax ma garanaysaa ku xiran biyo la cabo iyo waxaasi marka waxa lagu ogaadaa horta jirkaaga ayay la socotaa calooshu inay weynaanayso iyo in kale soo inay calooshaadu weyn tahay haddii calooshu weyn tahayna dhibaato badan oo caafimaad ah ayay keeni kartaa dadka dhaqaatiirtu waxay u qaybiyaan qaybo badan ayay u qaybiyaan waana la cabiraa waxaa la yiraahdaa BME oo loo soo gaabiyo ingiriiska body index mass oo macnaheedu tahay hab loo cabiro wareega caloosha iyo dhirirkaaga iyo wareegaaga dhexda ayaa la isku miisaamayaa marka xuduud ayay u kala dhigaan waxay yiraahdaan 18.5 hadduu qofku ka hooseeyo qofkaasi waa qof aan aad caato u ah oo caatadiisu ay gaadhay inuu xanuun u jiro waa xanuun bay u arkaan haddii 18.5 ay dhexdaadu markaad cabirto sentimitir hadday ka yaraato waxaad u baahan tahay inaad dhakhtar tagto oo ma garanaysaa aad culayskaaga kor loo soo qaado sidoo kale waxay dhahaan waxa normal ah wixii laga bilaabo 18.5 centimeter ilaa 24.9 centimeter hadday tahayna waa normal waa caadi qofku hadduu 25 centimeter ilaa iyo 29 hadduu gaaro waxa la yiraahdaa waa overweight waxa waaye macnaha culays badan baa saaran laakiinse cudur ma ahan laakiin cudurku waa u dhow yahay waa qof mar walba oo cudur halis u ah dhikar macaan sokor wax kasta ku dhici kara daqiiqad walba ayuu qofkaas xanuunsan karaa wuxuu joogaa risk zone-kii buu joogaa so waa qof meel taagan qar ah hadduu gaaro qofku 25 ilaa 25 kaba hadduu dhaafo 25 ilaa 29 waxay dhahaan culays baa fuulay qofkaas cudur buna halis u yahay 30 hadduu gaaro centimeter qofka dhexdiisa waxa la yiraahdaa waa fetma macnaheedu waxa waaye waa cudur waa qofkaasi waano query oo kale wuxuu qabaa qofkaasi malaria wuxuu qabaa ma garanaysaa cudur uu qabaadii midka doonto soo qaad waa qof cudur qaba qofkaas fetma waa cudur buu qabaa waay marka 30 haday dhexdiisu gaarto qofka cudur buu qabaa waay marka sidee ku ogaan kartaa marka adoo gurigaaga jooga dhakhtar aan u baahnayn waxaad ku ogaan kartaa inaad ma garanaysaa aad is cabirto dhirirkaaga ayaad cabiraysaa intaad noqoto ayaad laba ku dhufanaysaa kadibna waxaad u qaybinaysaa culayskaaga
miisaan baa fuulaysaa intuu culayskaaga noqdo culayskaaga baad waxaad u qaybinaysaa dhirirkaaga oo 2 lagu dhuftay wixii ka soo baxa weeyaan sentimeterka dhexdaada marka saasaad ku ogaan kartaa adoon xarigba aan qaadanba dii kale xarig baad qaadan kartaa adeeg ku qusaysaa marka su'aashu waxa weeyaan sidee aan ku dhimi karaa dhexdayda ama caloosha baan dhimayaa haddaad tiraahdo macnaha waxa waaye miisaankaygaan dhimayaa waa inaan miisaankaaga dhintaa ma jirto qof kuu sheegi kara qofkii kuu sheegana been buu kuu sheegay qof kuu sheegi kara inaad caloosha wuxuu kaaga dhimayo uu kuu samaynayo qaas ah oo loogu talagalay oo caloosha toos u abaaraysa ma jirto soo iska ilow taas markaad rabtid inaad caloosha iska dhinto waxaad samaynaysaa waa inaad miisaankaaga dhintaa miisaankaaga haddaad rabtid inaad dhinto na waa inaad bedeshaa qaabka aad waxu cunto cuntadaada inaad bedesho waa taa inaad isla fahno waa okay cuntadaa bedelaysid maxaa waaye marka waxa miisaan qofku waxa loogu talagalay waxbuu cuni karaa calories in baa cuni kartaa fatka in baa cuni kartaa proteinka in baa cuni kartaa wax walba waxbaa cuni kartaa loogu talagalay maalintii inaad cunto qofka hadduu iska fadhiyo 1800 meelahaas kgl waxa buu cuni karaa baa la yiraahdaa hadduu dhaqdhaqaaqo wuu sii badsan karaa ma garanaysaa saasay ku soconaysaa marka number 1 waxa waaye horta cuntada aad cunayso in aad eegto waxaad cunayso cuntada qaarna aad iska dayso cuntooyinka ugu badan oo culayska kordhiya waa kuwan soo socda waa bariiska waa baastada waa sokorta wax walba macaan leh ma fahanta waa burka rootiga waxyaalahaas iska ilaalinaysaa marka waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo sidee ku dhacday maxaan cunaa ama sidee cunto kaliya intaan iskaga ilaaliyo aan culayskayga u dhimi karaa anigaan kula hadlaya ayaa sameeyey 2018 sawiradayda sidaan ay ekaayaan kuwan aad arkaysid aad buu culayskaygu u sareeyay waxaan dareemayay culays aad u badan waxaan dareemayay daal waxaan dareemayay ma garanaysaa aniga dhan in ma garanaysaa aan caafimaadkaygu uusan taam ahayn sigisaanta markaa xiranahay macaa dhib bay igu ahayd ma fahantay 3 bilood gudahood sidan ayaan u ekaa sawirana aad arkaysid ayaan u ekaa so waa waxaan soo tijaabiyey si aan ma garanaysaa waxaan tijaabina inaan kuu sheego waa sax maahan so halkan waxaad haysataa caddayn saxa oo kuu caddaynaysa inaad guulaysan kartid haddaad raacdo talooyinkayga hadda marka waxaan kuu sheegi doonaa videogayga dambe aan ku sheegi doonaa waxyaalaha aad cunayso waxyaalihii aan anigu cunay si aan u gaaro sidan aad arkayso so hadduu ku cajab galiyo videogan subscribe garee si uu aad notification u heshid oo markaan video aan soo dhigo oo aad u aragtid taabo gambaleelka xalqada labaad ama videoga labaad oo aan kaga sheekeynayo waxyaalaha ay tahay inaad cunto na la soco aan soo dhigi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullah.